waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada kanaalkeena iga fila wanaag. Maanta waxaan wadaa sidee iskugu daaweyn karaa qolofka rumaanka. Qolofta rumaanka sidee la iskugu daaweyn karaa? Qolofta rumaanka hadda kadib ha iska tuurin. Sidaa wada ognahayba Soomaali haddaan nahay bini'aadanka intooda badanba mirahay cunaan qolofta waa tuuraan. laakiin hadda kadib ha iska tuurin. Haddaa u baahan tahay xanuun baabi'iye waa ka helaysaa. Haddaa u baahan tahay qalajiye infection waa ka helaysaa. oo beerkii caloosha hadaa ka jiran tahay waa ka helaysaa. khaasatan beerka bahalka caloosha galo, bahalka iyo cudurrada beerka aad u daaweeyaa ama aad ugu fiican yahay. infection-ka oo naagaha ku dhaca sidoo kale waa la isku caateeyaa. timaha wuu u fiican yahay oo cira haday ku gasho, ha ahaato ciradaas da ahaan ama ha ahaato mid adoo yar ku gashay. cirada sida ognahay da kuma xirna. sida la iskugu daaweeyo cirada mar ana soo dhigi doono kanaalkeena. wajiga ama jirka dhan u fiican yahay, soft uu ka dhigaa oo tajaaciidka ama miinmiinta jirka uu ka bixiyaa. sida ognahay naftarkeeda da kuma xirna. biyuhu jirka ku yaraadoba jirka maqaarkaaga wuu isbedelayaa. maqaarkaaga sidii awal uu kusoo celinayaa. maasha allah. inaa is caateyso hadaa u baahan tahay waa kasoo hadalna taasna. waxaan idin leeyahay rumaanka faa'iidooyinkiisa inta ma lagu soo koobi karo. asiga qolofkiisaba miraha barakeysanay ku jiraan. quraanka lagu sheegay waa ognahay taas. hadba sidee loo isticmaalaa. hadaa rabtid inaa isku caateysid waxaa sameynaysaa rumaankaana shiidanaysaa. horta waa qalajinayaa. sida u jeedin waa soo qalajiyay. soo qalalsan waaye saanu kusoo baxaa markuu qalalan yahay. waa kaasaa oo gacanta waa ku jibin kartaa. qoraxaa dhigaysaa. markuu ku qalal waa shiidanaysaa. subaxi hal koob biyo kula qasanaysaa. biyo qandaca waa cabaysaa intaadan quraacanin nus saac ka hor. waa inaa is caateyso hadaa u baahan tahay. haddii caloosha lagaa hayo, caloosha ka jiran tahay, bahal ha ahaado, beerka ha ahaado, kilida ha ahaato, infection-nada caloosha galo dhan isku soo dardar rabaan ha ahaadaan. yoomiyan 2 mar cabaysaa subaxii iyo habeenkii. koob biyo kula qasanaysaa waa cabaysaa. madaxa kusoo xanuunay waxaa sameynaysaa koob biyo ku qasanaysaa waa cabaysaa. xanuun baabi'i waay. infection-ka dumarka sidoo kale isku daaweynaysaa. isagana 2 mar cabaysaa maalintii. maasha allah nadiif aa noqonaysaa ilaahay idinkiis. si joogto ah hadaa u cabtid dhiiga xitaa wuu safeeyaa. qolofkiisa waa la isku qorayaa waa soo sheegnay. maxaaba harayba oo daawo dhanba ma u baahanaysid marka. wax walbaba haduu u fiican yahay maxaa haray waay. maasha allah. aham shay laakiin inuu qalalan yahay waaye. safiyan u qalalan yahay. intaadan isticmaalin ka hor qalaji. kadib iska dhaqo qalaji haddana kadib shiid oo weel xiran ku shubo. wax alaalo ugu baahan tahay waa ka helaysaa. oo calcium-ku u fiican yahay. fitamiino badanaa laga helaa. qalajiye guud waaye geedkan war iyo dhammaantiis. qalajiye guud wax walbuu qalajiyaa. sawa ha noqoto nabar kugu yaalo, infection ha noqoto, caloosha ku xanuunsan infection ka qaad ha noqoto, wax walbo
caadada haday ku dhibeyso ama ku xanuunsan tahay xanuunkeeda wuu baabi'iyaa. waxaan idin dhihi lahaa daawooyin inta iska dhaaftiin geedkan isku ogaada oo walaashiin iga fil wanaag oo idin leh romaan qoloftiisa ha iloobina oo isku daawee. kanaalka hadaa ku cusub tahay subscribe garee hadduu ku cajibi video like saar asxaabtaadana la wadaag. Salaam.